أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan Xushno TV meel walba joogtaan dunida. waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. sidoo kale Xushno TV hal saaro subscribe like and share. waxaan idin hayaa cawada arin la yaab leh lamaane Shiinees ah oo 200 oo baranbara lagu galay garoon diyaaradeed dhexdeeda ayaa waxa lagu arkay 100 ilaa 200 oo baranbarood dhageysi wacan mas'uuliyiinta canshuuraha ee dalka Shiinaha ee ku sugan garoonka diyaaradeed ayaa la kulmay arin la yaab leh kadib markii ay fureen boorso ay lamaane wateen taas oo ay ka heleen 200 oo baranbar oo waliba nool sida ay sheegeen sida uu qoray wargeyska Youth Daily laamaha ammaanka ku sugan garoonka diyaaradaha Bain International Airport magaalada Guangdong ayaa arkay in wax boorsada ku jira ay nuxnuxsanayaan kadib markii ay boorsada dhex martay mishiin wax lagu baaray oo boorso dhex martay sawirka aad arkaysaan. arintan la yaabka leh lagu arkay lamaanahan daada ayaa dhacday 25 November. meesha waxa ku jiray bac ay ka dhex dhaqdhaqaaqayeen waxyaabo badan oo madmadow sida kan news u sheegay ilaalada kamid ahayd gabar kamid ah shaqaalihii ayaa markaas furtay boorsada baranbaro ayaana ka soo yaacday in ay ooydana wax yar baa ugu dhimanaa ayana hadalkeedii ku sii dartay. markii la weydiiyay sababta ay u safarinayaan baranbarahan ninkii ayaa mas'uuliyiintii garoonka u sheegay in ay xaaskiisii jirka marsato ma uusan sii faahfaahin xaaladaas xaaskiisii ku sugan tahay laakiin ayaa sheegay in mas'uuliyiinta loo sheegay in ay tahay nooc daawo ah oo waayadii hore la isticmaali jiray inta kareen ay sii jirin. sidoo kale waxay isku qas jireen inta kareen dawo lagu qaso baranbar ayaana jirka la marsi jiray xilligaas. Youth Daily ayaa sheegtay in aan la ogolayn in wax nool lala galo diyaaradda gudaheeda iyadoo lagu wato boorsada gacanta lamaanihiina ay ogolaadeen in ay kaga tagaan laamaha ammaanka lamana og meesha ay baranbarahaasi ku dambeeyeen. ma aha markii koobaad laamaha ammaanku ay wax la yaab leh ka dhex arkaan mishiinada ammaanka lagu baaro. bishii Agoosto saraakiisha ammaanka ayaa helay nin safrinayay 2 gacmood oo bini aadamka kadib markii ay ka soo dhex muuqdeen mishiinka X-ray loo yaqaano ammaanka lagu baaro kaas oo lagu arki karo waxa boorsada gudaheeda ku jira. waa ninka la yaabka badan oo cajiibka badan waa nin iyo lamaanihiisii oo ku sheegay in lamaanihiisii ay marsi jirtay baranbarta. waxaasoo dhan waxaad heli kartaan Xushno TV. sidoo kale waxaa daba socdo sawiro waad ka arki kartaan. waxaa idin leenahay wax kasta oo aad u baahan tihiin Xushno TV way idin sii doontaa. adinka waxaad ku dadaashaan inaad subscribe-ka iyo like-ga saartaan aad share gareysaan asxaabtu. waxaa idin leenahay habeen wanaagsan sidoo kale maalin wanaagsan. waxaa idin shaqeynayna waa adinka waxaan ka shaqeynaa horumarkiina. waxaa idin leenahay Soomaaliya ha noolaato.